warka qoraalka ee ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri safarka madaxweynuhu waxa uu qayb ka yahay dadaalada uu hogaaminayo ee lagu doonayo in lagu xoojiyo midnimada dalka laguna dardargeliyo wada tashiga ku saabsan geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee qoraalka ayaa si taxadar leh looga reebay magaca madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. dhanka kalena daqiiqado uun kadib waxaa qoraal gaar ah soo saaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxaan maanta magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud. hadalka Axmed Madoobe ayaa u muuqda mid uu kaga jawaabayay kan ka sii horeeyay ee Villa Soomaaliya ka soo baxay, waxa uuna ugu yeeray walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud. ciyaarta ayaa haatan maraysa 1-1. kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal. sidii aad la socoteen maanta waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee Jubbaland gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. soo dhaweyn diiran kadib waxaa loo hoyday dhanka caasimadda kumeel gaarka ee Jubbaland magaalada Kismaayo iyadoo aqalka martidana la dejiyay wafdiga dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba war qoraal oo ka soo baxay labada dhinac Villa Soomaaliya iyo Villa Kismaayo ayaa waxa uu noqday mid dadka Soomaaliyeed ay aad u hadal hayaan. jikaar iyo quuriwaa mid waliba midka kale uusan u quurin waxa uu ahaa ayaa halkaasi ka dhacay. waxaan fiirin doonaaba labada war saxaafadeed ee aadka loo hadal hayo ee ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhanka Jubbaland. warka qoraalka ee ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri safarka madaxweynuhu waxa uu qayb ka yahay dadaalada uu hogaaminayo ee lagu doonayo in lagu xoojiyo midnimada dalka laguna dardargeliyo wada tashiga ku saabsan geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya. qoraalka rasmiga ah ee ka soo baxay madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu tagay magaalada Kismaayo si wadida wada tashiyada ku aadan dowlad dhiska, kor u qaadida isfahamka iyo mideynta aragtiyaha ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee qoraalka ayaa si taxadar leh looga reebay magaca madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, taasi oo dad badan u arkeen fariin siyaasadeed oo muujinaysa kala fogaanshiyaha u dhaxeeya labada hogaamiye. sidoo kalena in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan weli aqoonsanayn doorashadii Jubbaland ee Axmed Madoobe lagu doortay mar kale. dhanka kalena daqiiqado uun kadib waxaa qoraal gaar ah soo saaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku faafiyay barta uu Facebook ku leeyahay iyo sidoo kale barta ay madaxtooyada Jubbaland ay ku leedahay Facebook. waxaana lagu yiri qoraalka uu ka soo saaray madaxweynaha Jubbaland kulankii maanta iyo soo dhaweyntii Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan maanta magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo. dowladda Jubbaland mar waliba waa u furan yihiin albaabada wada hadalka iyo sidii looga dhabayn lahaa himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka aadka u koobnaa ee iyaduna dhanka Jubbaland ka soo baxay. hadalka Axmed Madoobe ayaa u muuqda mid uu kaga jawaabayay kan ka sii horeeyay ee Villa Soomaaliya ka soo baxay, waxa uuna ugu yeeray walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana loo arkaa in ay tahay fariin siyaasadeed oo ka turjumaysa in aanu si toos ah u aqoonsanayn madaxweynaha dalka inuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud, balse uu ula hadlayo si shakhsi ah oo aan shaqo ku lahayn haykal dowladeed. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in labadan qoraal ee rasmiga ah ay si cad u muujinayaan diidmada aamusan ee labada dhinac u qabaan midba midka kale. waxaa sidoo kale xiise gaar leh in labada madaxweyne aysan ilaa hadda si toos ah uga wada hadlin arrimaha taagan ee u dhaxeeya dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe, inkastoo safarka Xasan Sheekh Maxamuud lagu sheegay mid is-afgarad iyo midnimo lagu raadinayo. ciyaarta ayaa haatan maraysa 1-1 waana bareejo la kala joogo, iyada oo fariintii ka timid Villa Soomaaliya ee aan mar raba lagu xusin magaca madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam lagaga jawaabay laba jumladood oo kooban oo muhiimadu ay ahayd waxaan soo dhaweeyay walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan leenahay niyadaha la isku furo caadi iska dhiga. intaas ayaan jeclahay daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyo qodobkan. kuma hasanidin la socodkiin.